Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada janalka maanta. Dunidan waxaa ku nool dad jecel inay wax dilaan ama afduubtaan. Sidaa darteed dadka qaar ayaa sameeyay ilaalo qaas u ah sida siyaasiyiinta, madaxda iyo dadka leh hantida. Waxayna sidaa u sameynayaan waa kuwa cadowgoodu badan yahay. Haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dadka ugu ilaalada adag dunida. Intaan u gudagelin haddii aad ku cusub tahay janalka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino. Lana wadaag asxaabtaada adiga oo share gareynaya muuqaalkan. Maydka ugu ilaalada adag. Haddii aad arki jirtay in la waardiyeeyo dadka nool oo kaliya, haddaba waxaa jira kuwa aan noolayn oo la waardiyeeyo. In la waardiyeeyo qof mayd ah waa mid dhif iyo naadir ah. Laakiin waxa ay ka dhacday arrintan la yaabka leh Russia. Maydkan la waardiyeeyo waa madaxweynihii ugu horreeyay ee Midowgii Soofiyeed oo lagu magacaabi jiray Vladimir Lenin. Waxaana la dhigay maydkiisa halkan sanadii 1924 waxaana waardiyeeyay ciidamo qaas u ah 24 saac muddo dhan 95 sano. Waxayna u arkaan ilaalintiisa mid muhiim u ah. Mana ahan mid ay sameeyaan dowladaha oo dhan ee kaliya waxaa sameeyay arrinkan Russia. Maxbuuska ugu ilaalada adag. Kani waa mid ka mid ah xabsiyada dadka dambiyada adag gala lagu xiro. Waxaana ku jira ninkan ku caanka ah ka ganacsiga daroogada oo ku magac dheer El Chapo. Ninkan waxaa la xiray marar badan, waana mid ka baxsada xabsiyada lagu xiro inta badan. Sanadii 2016 waxa uu ka baxsaday xabsi ku yaala Mareykanka. Waxa uuna noqday maxbuuska ugu ilaalada adag oo ay waardiyeeyaan ciidamo 24 saac. Waxaana sidoo kale wax ka waardiyeeya kaas oo ka baara cuntada, waxyaabaha maanka dooriya iyo sunta. Ninkan waxaa lagu eedeeyay in uu dilay dad badan oo Mexican ah oo ka ganacsan jiray daraagiska. Mark Zuckerberg. Markii Facebook la sameeyay, waxaa fududaatay in sirta bannaanka loo soo saaro. Mark waa ninka leh Facebooka. Waxa uu ku bixiyay amnigiisa miisaaniyad aad u badan. Sanadii 2015 waxa uu ku qarash gareeyay ilaalintiisa lacag dhan $20 milyan oo dollarka Mareykanka ah, halka ay ku baxday 7.3 milyan ilaalinta hoygiisa iyo marka uu safrayo. Ninkan ilaalidiisa waxaa loogu yeeraa booliiska qarsoon. Waardiyaashiisa khaaska u ahna waa 16 ilaalo, waxaana intaa u dheer in uu shirkad amniga ka shaqeysa uu heshiis la galay ku kacaya lacag dhan 2.3 milyan si ay mas'uul uga noqoto amnigiisa. Ninkan waxa uu noqday shakhsiga kaliya oo ah madaxa fulin shirkad oo lacag inta la ku bixiya amnigiisa. Marka la barbar dhigo ninka leh Oracle oo la yiraahdo Larry Ellison, waxa uu ahaa 10 sano ka hor ninka lacagta ugu badan ku bixiya amnigiisa 1.8 milyan. Waxaana iskoorkaasi meesha ka saaray ninka iska leh Facebook. Boqoradda ugu ilaalada adag. Boqoradda Elizabeth II waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan dunida, amnigoodana aadka loo ilaaliyo. Waxay u dabaaldegtay sanadii 2017 oo ay ka mid noqotay dadka sanadooyinka ugu badan xilka boqortooyada haya. Waxayna leedahay ilaalo amnigeeda aad u ilaaliya, waxaana ka mid ah kuwa la yiraahdo Royal Guard iyo kuwa kale oo ilaaliya reerka boqortooyada. Waxayna iskugu jiraan ciidamada badda iyo kuwa cirka, iyagoona wata diyaarado iyo maraakiib intaba. ciidanka ilaaliya iyada ay qaas u yihiin, waxaana ku baxa lacag aad u badan sanadkii. Hogaamiye diimeedka ugu ilaalada adag. Wadaadkan waa mid ka mid ah kuwa ugu ilaalada adag adduunka. Waxa uu madax ka soo noqday kaniisadda Katoliga Vatican City oo ku taala Talyaaniga. Haddii aad ku lugaysid wadooyinka magaalada, waxaad arkaysaa ilaalada sidan u labisan. Iyaga ayaana waardiyeeya boobka. Waxaana loo yaqaanaa Swiss Guard. Waana militariga ugu faca weyn ee haatan ka jira adduunka. Waxa ayna jiraan 500 oo sano. Waxaana aasaasay Pope Julius sanadii 1506.
taajirka ugu ilaalada adag. Donald Trump waa maalqabeen, haatanna waa madaxweynaha dalka Mareykanka. Waxaa lagu qiyaasay hantidiisa 3.1 bilyan ka hor inta uusan noqon madaxweynaha. Waxa uu ahaa mid la waardiyeeyo. Sida iska cad, markuu noqday madaxweyne, waxa uu leeyahay ilaalin intii hore ka sii adag. Micnaha waxaa lagu bixiyaa lacag aad u badan. Waxaa isbarbardhig lagu sameeyay isaga iyo madaxweynihii ka horreeyay ee Barack Obama. Lacagta ku baxday amnigooda. Barack Obama markuu hal sano joogay xafiiska, waxaa ku baxday lacag dhan 16 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Halka Donald Trump ay ku baxday lacag gaaraysa 29 milyan sida ay sheegeen qolyaha dejiya miisaaniyadda dowladda Mareykanka. Sanadii 2017 lacagta ku baxday amniga qoyska Trump in ay tahay mid aan macquul ahayn, aadna u badan tahay inta uu joogo xafiiska. Halka Barack Obama 8 sano uu joogay xafiiska ay ku baxday mid aad uga yar inta ku baxaysa Trump. Gabadha ugu ilaalada adag waxa ay ka dhacday qiso la yaab leh meel u jirta dhowr kiiloomitir magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Gabar yar oo 12 sano jir ah ayaa la waayay muddo asbuuc ah kadib markii uu nin ku qasbay in ay guurkiisa ka ogolaato. Waana la waayay, waxayna u carartay duurka iyada oo la kulantay 3 libaax. Markii arkeen way fiiriyeen, aad ayayna u oynaysay. Waxayna dib ugu laabteen kaynta libaaxyadii. Waxayna ahayd arrin la yaab leh. Gabadhii yareed way iska oysay, waxaana waardiye u noqday xayawaanada ugu halista badan. Waxaana la isweydiiyey sababta ay u cuni waayeen libaaxyada, laakiin ma aysan dhicin in ay cunaan oo waardiye ayay u noqdeen. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub, lana wadaag asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalka. Mahadsanidin.